بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسنا قيارتا ودينا قد داونا سايد الكيمبا ميرور بواد جوجتان وحان idin leenahay waqtiga idin wacnaado ilaahayna dhammaantiin baa hayd barakeeyo fadlan muuqaalka leegta ku qabo wixii fariimo ahna qaybta hoose inoogu reeb oo la sii wadaag saaxiibadaada waxaan ilaahay aan ku weydiinaynaa in umuuraha leedahay oo dhan ilaahay uu ku sahlo xaasidkana ma liibaano ee iska daa xaasidnimada waxba kaama dhibaysay ku qabo waxaan dhammaanteen ba ilaahay aan weydiisanaynaa in umuuraha leenahay uu inoo sahlo ducada qaybaha dambe ayaan ka dhigan doonnaa oo dhammaanteen ilaahay aan wada baryi doonnaa hadduu allah awoodda leh uu saamaxo laakiin waxaad ku soo dhowaataan warbixin xog ah oo ku aadan adoo nool malakamoodkaaga oo lagu tusay kadibna malakamoodka uu kaa hadal siiyey haddaba waa sheeko cajiib ah oo aad u naxdin badan waxaana sheekadan aan idiin soo gudbin doonno oo aad arki doontaan qoraalka shaashadda ayaad ka arki doontaan waxaa qoraalkan dhowr habeen ka hor waa 48 saac ilaa 72 saac ka hor qiyaastii qortay gabar lagu magacaabo Zahra Degan oo ka mid ahayd dhalinyaradii maanta ku shahiiday qaraxii ka dhacay agagaarka isgoyska X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. Zahra waxaa la tusay malakamoodkeeda waxaana ay iswadaarsadeen gabar saaxiibteeda oo hadda aad u walwalsan kana dhaxsan erayadan halkan ku qoran oo Zahra ayadoo nool ay ku tiri ayaa waxay yihiin erayo aad u yaab badan ayadoo sidoo kale aan eegi doonno khasaaraha qaraxii maanta dhacay iyo weliba dadka ku shahiiday oo tiradooda ay sii kordhayso iyo faahfaahin ka soo baxaysa qaraxa iyo weliba qaabka uu u dhacay ayadoona hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliyana dhankooda ay sheegayaan inay hayaan raadad kala duwan laakiin qisadan si degan ayaan u macnaynaynaa waxaana jira dad badan oo arrimahan oo kale ay ku dhacaan oo arka malakamoodka dhimashada ama saasaanta dhimashada dareema waxaana ay ku dhacdaa dadka qaarkiis oo wadaad ka mid ahaa wadaadada Soomaalida oo dhowaan lagu dilay Soomaaliya ayaa sidaas oo kale loo tusay oo hooyadiis oo dhimatay in qabrigeeda uu aaday ayaa wuxuu ku yiri hooyo waxaan ka dambeynayaa 2 maalin iyo 3 maalin waan ku soo daba socdaa ilaahay qadartiisna inuu malakamoodkii uu arkay oo kale 2 maalin dabadeed wadaadkii uu dhintay. haddaba Zahra Degan allah u naxariistay waxay ka mid ahayd dadkii ku shahiiday maanta qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee 100 qof ka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay isgoyska X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho waxaana halkaasi ku shahiiday dhalinyaro aad u fara badan kuwaasi oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale ku jiray dadka shahiiday caruur yar yar oo da'dooda ilaa 5 sano 4 sano 3 sano ay u dhaxaysay iyo weliba hooyooyin duqoy ah kuwaasi oo aan waxba galabsanin oo maanta naftooda ku waayay ayagoo qaarkood xamaalanaya da'doodana ay weyn tahay ku waayay qaraxii nafsadooda ku waayay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxaasi uu ahaa mid arxan darro ah oo dad badan oo masaakiin ah oo waxba galabsanin lagu baabi'iyay waxaana ku jiray dhalinyaro u bixi mustaqbalka ah oo gaari ay saarnaayeen oo ay ugu socdeen jaamacadooda gabi ahaanba bas beelay waxayna iskugu jireen gabdho iyo wiilal oo u socday ama u kala hayay waxbarashadooda kuwaasoo la sheegay in ay ku jireen bilooyinkii ugu dambeeyey ee qalinjibinta jaamacadooda laakiin maanta ayay halkaasi ku shahiideen. magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaa falal kala duwan oo midba midka kale uu ka daran yahay kuwaasi oo lagu laayo dad aan waxba galabsanin iyo weliba dad u dhaqdhaqaaqa bulshada laakiin lagama tabatago oo lama sameeyo wax ka dabatag ah loomana ciqaabo shakhsiyaad xilal haya oo xilalka laga qaado oo laga bedelo xilalka ay hayaan laakiin mar walba waxaa la yiraahdaa arintan ilaahay ha u naxariista inta dhimatay guddi baa loo xilsaaray guddiga ayaa wax qaban doona haddaba arrimahaasi qaybaha dambe ayaan ku falanqaynaynaa laakiin iyaan war idinku daalinine waxaan idiin soo gudbinayaa macluumaadka Zahra Degan
ay tiri 72 saac ka hor dhimashadeeda iyo qaabka loo tusay malakamoodka waa malakamoodka iyo dhimashada qaabka ay u aragtay. gabadhan zahro ayaa waxay ka mid ahayd ardayda maanta ku shahiiday qaraxa ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho. zahro saaxiibteed ayaa u qortay qoraal oo waxay tiri zahray halkee ayaad joogtaa, waxayna zahra allah u naxariistee ay ku jawaabtay oo ay tiri waxaan joogaa qubuuraha barakaad ayaan joogaa ee iga soo doon saaxiib ama bebi sida hadalka ay u dhigtay. markaasi ayay saaxiibteed waxay tiri hoogay reer aakhiraad facebooka isticmaalaya maa jira. markaasi yes haa waa xaqiiq oo hadda waxaan ahay reer aakhiraad nimca qurux is ilaali ayay tiri sahra degan ilaahay ha u naxariistee. waxayna sidoo kale zahro ay tiri oo ereyada cajiibka leh ay tiri ka mid ah okay qubuuraha barakaad igu imaaw waxaan joogaa qubuuraha waxaana ku jira godka 547 halkaas ayay zahro ay ku aasan tahay oo aan ku jiraayay halkaas igu imaaw saaxiib ayay tiri zahra allah u naxariistee. markaasi ayay saaxiibteed zahro oo xilligaasi la hadlaysay haddana cabsida badan dareemaysa oo aad ula yaabtay hadalka zahro ayaa waxay tiri naa wallaahi cabsi toos ah ayaa igu riday. haye ma cabsatay albi waa noolahay soo laabo ayay tiri zahro oo markaasi markay cabsatay saaxiibteed waxay ku qancisay oo ay tiri haye ma cabsatay albi waa noolahay soo laabo. 72 saac kama soo wareeganin waxa ay ku dhimatay oo ay ku shahiiday qaraxii maanta ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho. tirada dhimashada halkaasi waxaa la soo sheegayaa oo caawa wararka soo baxay ay sheegayaan in 100 tirada dhimashada ay gaarayso tiro 150 qofood dad ku dhowna qaraxaasi ismiidaaminta ay ku dhaawacmeen kuwaas oo hadda yaalo isbitaalada waaweyn ee magaalada muqdisho. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u weydiinaynaa zahro iyo weliba dadka kale ku shahiiday qaraxa ismiidaaminta ahaa ee maanta muqdisho ka dhacay sida xaqdarrada ah loo laayay oo ay ku jiraan sabyaan duqeey iyo weliba dhalinyaro mustaqbalka ah ama ubaxa dalka ah oo halkaasi lagu laayay. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu baryeynaa in jannadii firdowse ilaahay uu geeyo. fadlan soo qor aamiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa in dembigooda uu ilaahay ugu dhaafo, ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uu u naxariisto, jannadiina uu ku abaalmariyo kuwii ka dambeeyey falkaasina ilaahay inuu adduunka uu ku ciqaabo aakhirana cadaabtiisa uu geeyo ayaan ilaahay ka baryeynaa. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u weydiinaynaa dhammaan dadka ku dhaawacmay 150 qofood gaaraya isbitaalada waaweyn ee muqdisho ku jira inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu boogadhayo isla markaana si degdeg ah ilaahay uu dhaawacyadooda uu caafiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa dhammaanteen baan su'aalinaynaa ilaahay in dhaawacooda uu ka dhigo mid sahal ah oo yasir ah. waxaan leenahay oo aan ilaahay aan weydiisanaynaa oo aan leenahay yaa allah ilaahu dadkaasi caafimaad taamsiiyo oo dembi dhaaf ugu dhig dhibka maanta soo gaaray. waxaana dadkaasi ay yihiin dad berimageeda ah oo aan waxba galabsanin oo si xaq darro ah maanta loo laayay. su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay waxaa dhacaa falal kala duwan laakiin ma jirto wax xisaab ah iyo weliba mas-uuliyiin arrintaasi lagula xisaabtamo. xasan cali kheyre oo hadda ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu dhowr sano ka hor meel fagaaraha uu ka sheegay oo meel walba ku jirta oo uu leeyahay haddii qarax uu dhaco liskama yeelayo, qarax ayaa dhacay waa in mas-uuliyadda la qaadaa oo wasiiro ama saraakiil ciidan xilka ay ku waayaan. waxaa dhacay qarax ay ku dhinteen ku dhowaad 1,000 qofood oo ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada muqdisho. ma jiro cid xilka lagaga qaaday iyo ama cid loo xirxiray oo mas-uuliyaddaasi qaadatay. waxaase ka sii darneed dowladdii hoose xamar waxaa lagu dilay duqii muqdisho allah u naxariistee ahaana gudoomiyihii gobolka injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow. guddi ayaa loo xil saaray mana jirto wax ka soo baxay iyo weliba mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo loo ciqaabay. waxaa xirada xalanle ee magaalada muqdisho lagu dhex dilay ilmaas ilman cali axmed
oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqul insaanka meesha lagu dilayna waa barta ugu amniga fiican magaalada muqdisho oo ciidamada shisheeye iyo weliba safaaradaha adduunka ay degan yihiin guddi ayaa loo xilsaaray mana jirto baalis soo baxday dhalinyaro badan duqay iyo weliba hooyooyin mustaqbalka waa ubixii mustaqbalka Soomaaliya ayaa maanta lagu laayay ex control afgooye mana jirto wax ilaa hadda mas'uuliyiin ah oo xilka lagaga qaaday ama cid mas'uuliyadda qaadatay adduunka markii wax yar uu dhaco waxaa iscasila ra'iisul wasaare waxaa iscasilo xilka waaya oo ka taga ayagoo aan laga qaadin wasiiro xataa ra'iisul wasaaraha ama qofka ugu sareeya dalka ayaa xishooda oo yiraahda waxaana qaatay mas'uuliyadda waxaana ka tagay laakiin Soomaaliya sidaasi ma aha oo Soomaaliya way ka dugan tahay qofka bartiisa ayuu iska sii fadhinayaa mana jirto wax xisaab ah oo qofkaasi uu marayo waase muhiim in dal loo ciqaabaa tacadiyada iyo dhibaatooyinka dhaca mas'uuliyad daradana ay qaataan ragga madaxda ah waxaan dhamaanteen bilaahay weydiisanaynaa dambi dhaaf Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha sahla ilaahu dhamaanteen umuraha leenahay ilaahu noo sahal rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin Allahumma la mani'a lima a'dayta wa la mu'diya lima mana'ta wa la qada إلا قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلهي وحن دمانتين بأن ويديسنا أمورها لنا إلهي إنه سهله إله ولا أمورها سهله إله قف والبا مقالك اللي جريا إله أموري سأسهل هذا صاحبنا لا تهي وكم أصنت هديك لنا جنب لك تهاوسي معلوماتك عن سوق بنا دول سعودي هذيك يا اختيارك إسكاله لكن وحن دمانتين بإلهي أن وذا سؤالنا إنه أو أن ويديسنا إله جمع بان هاي أمورها لنا إله إنه سهل إله ضدك داونا إياه أموره إليه إله هل مر أمورها دع أسيء إله ربي رحمنه وفضيه وسهله هي لذان دعابي جمع هدوان كل بان أنا جن إله أموره إيسا إله وحن كمان قلنا كوا شرط النباتة دي اللجوية إن الله دم حسن وحي شرع والنباتة واللجوية وينوم ملاقي يعني إله إلا اللهم لا مانع لما عضيت ولا معضي لما منعت ولا قاضي إلا قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إله مقعد وانا أكسر وحن كوجو دي سنين نحريست هذا الدنيا يمد عقر والله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى إله أولاد إله دمانتين بأولاد إنه حفظي إله ضدك أولاد دون إله أولاد بارياسي وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قصلي نبيك صلى الله عليه وسلم لما أنت أنا فاتحة نيدة أفر فاتحة أمرنا ضدك ما أنت كشيدي يولي بكوا داوعة إنه إلهي عافية كوا شيدين إنه إلهي